laacibka ay sheekadiisa idinku soo socoto waxaa jacayl la yaab leh ku sirtay gabar uu qadka ka bartay oo markii dambe uu sheekaystay inay dhimatay taasoo uu ogaaday inay been tahay iyadoo sawir been ah ku siri jirtay. haddaba sheekadani oo ka baxday barnaamijka bandhiga xaaji ee Gool FM waxaan oo qaada dhigaya wariye maxamed xaaji xuseen raago oo ah tafatiraha Gool FM. kusoo dhawaada sheekadii. لاعب lagu magacaabo Manti Te'o oo u ciyaara kooxda Notre Dame ee dalka Mareykanka oo ah koox ay jaamacad leedahay oo ciyaarta rugby-ga oo Mareykanka looga yaqaan football ayaa la kulmay dhacdo jacayl oo beerkiisa balbalisay 2012 oo ah sanadkii hore ayaa waxa shaacday sheeko caan baxday oo sheegaysay in cudurka kansarka dhiigga ee leukemia loo yaqaan ay u dhimatay gabar ay isku cindanaayeen taasoo uu muddo u barartay iyadoo ay waqti ku qaadatay inuu ka soo kabto diiqadii uu ka qaaday wax lagu sheegay musiibo mataana ahayd oo mar qura ku habsatay. waayo dhimashada gabadhan ayaa sidoo kale ku soo beegantay isla maalintii ay dhimatay ayadii oo uu adduunka ugu jeclaa. wabka la yiraahdo Deadspin ayaa haddaba arrintan daha ka rogay isagoo soo helay in wajiga ama profile-ka ay adeegsanayso uu ahaa mid ay lahayd gabar kale oo aan aqoonba u lahayn Manti iyo Kakua midkoodna. wabka ayaana gacan ka helayay nin wada yaqaanay Manti iyo gabadha sawirkeeda la xaday ee lagu shaqaystay. wuxuu sidoo kale wabku soo ogaaday inaanay jirin gabar la yiraahdo Lenay Kakua oo dhimatay. si kastaba ilmada urugada aramida iyo urkutaalada Manti Te'o ayaa la sheegay inay dhab ahayd balse gabadha uu waxaas oo dhan oo dhiba u maray oo isku sheegi jirtay magaca Lenay Kakua ayaa ahayd kurbo loo soo diray oo ay markii dambe cadaatay inaysan jirin wax la yiraahdo Lenay Kakua iyo in sheekada oo dhami ahayd wax la dhisay. haddaba isagoo inoo sheego sida ay wax u dhacaan. And he was just crying and that's when I kind of knew but I was still in denial. waxay soo wacay saaxiibkay deetana wuxuu bilaabay inuu ooyo aniguna waan ogaaday inay wax qaldan yihiin laakiin madax ayaan ciidda ka cashanayay oo ku jeclahay wax kasta oo kugu dhacana waan ku garab taaganahay oo adigan ku jooga waxaan ka helaa qaabka aad u ciyaarto sharaf bayna ay tahay barashadaada. waa arrin yaxyax leh balse muddo dheer baan xiriir caadifi alla wadaagay gabadha oo aan khadka iska naqaanay. waxaan ka hadlayaa qof aad maalin kasta telefoonka kula hadlayso marna aad khadka ugu jirto balse markii dambe sheekadu ay aamus isu bedeshay aamuskaasina waa mid ku cunay. And all of a sudden it's silence. That silence really eats at you. Manti Te'o ayaa tibaaxay inay gabadhan ugu sheekayn jirtay inay jeceshahay oo ay markasta garab taagan tahay gaar ahaan haddii ay wax ku dhacaan balse si ay qalbigiisa u dhaawacdo ayay dhimashadeeda beenta ah ku soo beegtay isla maalintii ay ayadiis xijaabatay. waxaase dad badan ka daadegila oo ay su'aal ka keenaan sababta uusan marna ula kulmin qof ay muddada dheer khadka ku wada xiriirayaan. waxa kale oo ay su'aal aan wali laga jawaabin ka taagan tahay danta gabadhan ugu jirtay inay waxaas oo dhan dhisto. sheekadan ayaa sidoo kale dadka soo xusuusay documentary lagu magacaabo Catfish oo ku saabsan wiil dhalinyaro ah oo ay dhagrayso gabar uu khadka ka bartay taasoo iska dhigdhigaysa qof aysan runtii ahayn. inaan ogaado inaan ahaa dhibana lagu siray been joogto ah iyo jacayl jiraan waxay ahayd welina tahay sheeko bahdil ah ayuu yiri Te'o oo aan la ogeyn in gabadha iyo sawirka ay adeegsan jirtay ay isu ekaayeen iyo in kale. aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariye maxamed xaaji xuseen raago oo ah tafatiraha goolfm.net. halkaad kala socoteen qisadan jecel waa barnaamijka bandhiga xaaji waa anigoo ah Daalac Daarshood oo idin leh kulanti dambe oo xiiso leh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.